رب العالمين horta marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa magaranaysaa wadamada ka qayb galay saxaas Ethiopia iyo DB World ay Imaaraadku leeyihiin iyo Soomaaliya waxaan baleenayaa waa talaabo aad iyo aad u soo dhaweynayno waxaa halka ka muuqata arrimo badan waxaa ka muuqata in Soomaaliland ay noqotay dal la aamini karo oo la isku halin karo oo heshiis geli kara oo la maal gashan kara ka dhalatay halka waxa ka maratay wadamada IGAD amba Horn of Africa halkii colaad u dhaxan jirtay inaynu cooperation wada xaqabsi iyo magaranaysaa integration economy integration oo bilaabmay beyond the crisis marka waxaan inaga dhamaaday Soomaaliya hagaagta hadii la yiraahdo heshiiskani waa heshiis Soomaaliya sharci u leedahay heshiis hore badan adduunka la gashay waa de facto state waxa heshiiskan Soomaaliya dowladda Soomaaliya iska magaca waxaan ku heshiinay markaan ahayn wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya 2013 ki Istanbul in wadan kasta uu xaq u leeyahay wixiisa inuu horumarkiisa samaysto taas waa tilay nagu sameeyay special arrangement-ka Somali Compact mashruuc loo oran jiray madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha hore Xasan Sheekh labada madaxweyne horeba waxay ku wada shireen 2014 December Djibouti lagu heshiiyeen wixii horumara aan magaranaysaa aan qolka xaq u leedahay marka waxaan taasoo inay dhex taalay marka ninkan iska hadlaya de kolba wad ogtiino mid NGO yar haysan jiray oo kolba ka dhigan madaxweyne tamay laga soo qaado ninkan la yiraahdo khayre waxa weeye waa mid iska daa Soomaaliland Soomaaliya horta wax la yiraahdo oo federal government ma jirto waa magac la sameeyay oo lagu qabsado doonaya in shirarkan lagu la dagaalamo khayraadka Soomaalina lagu qaato hadduu naf leeyahay saddex gobol oo Jubaland la baxay ayuu Axmed Madow isku dubaritay oo xaq u lahayn hadduu xaq naf leeyahay dekada Boosaaso عبد الولي قاس سوى له حنا دولة regional state أيو سي independent واستعمالها ما واحد سومالي تراها أبا كوين كيرجع له كوين يقول سوده عبد الولي وكبقى هنا كان هو ماستر كيس هوري ما وقتي ما قال حوي كان الدلاليس بعد وش هاي أو سومالي قاس عن أويل كومباني هو اللي أردت دقا تريبا ما هو يشوي ماشى ما كي أردت دعيسو دلاليس لانتاس ما كانوا وان أغنى مانت الصومالية وحن دولد لو شيء أو حق عنتك وهي أحمد مدوبي فرماجو يا أحمد يا عبد الولقاس ما فرماجو الله معاملنا سعيد ما يدورون وحليه ولا يدور تيسهم على يدور سومال دورتوا هي يكون إحدى دورنا ولا ما عاوي ما قام الحين فرماج سانو إن شاء الله تعالى كول حريرنا إنه وحن لقبه دلالكن يدي إنه يسوق كوبنتاي لكن سكو كوبان تايبا لكن waxaan sheegaynaa inaan ka talin karin sayeen inta yar magaranaysaa Soomaali Bantugi ee wasiirka dekedaha ya kama berbera kama talin karaan waa qaladkan saxayno ee 60 kii dhacay inta la dalkeega waxaan aqooniba oo ka hadlo waxaan kana u sheegaynaa shacabka Soomaaliland wasiir kharijiyaha Djibouti waa aragteen halku istaagay markaa hadaba ragii dadkii kala saari waayay gacalka iyo qaranka taasoo inoo marxad falay Djibouti ay tahay marka absiyaasha waxaan leeyahay dabasha qaranka iyo siidinimadu meel noo wada galaan qaranka ayaan ka muhiimsan muddo gudoomiye waxa hadda wasiirka arrimaha dibadda wuxuu taageeray dawladda federaalka joojintaas ay sheegtay inaanu sharci darro tahay heshiiskaas waxaan leeyahay Somaliland iyo Soomaaliya wada hadallada Djibouti bay ku kulmayaan yani caqabad ku noqon karin dhax sida uga noqon karta wada hadallada Somaliland waa tan ogaanay waxaan la kulmi lahaa farmaajo madaxweynaha ya dadkii wax xukumi jiray ma ogtahay anoo ninkan awslaa hadiis ku qaadan meena awska iibi jiray kuwa waan isaga eegina hadii la yiraahdo inuu waxaan la qabiyeen kalo markaas aan talaabo qaadina inaan kaba qayb galno Djibouti waxaan weydiin
qoladii daafacaysay lahaa faysal dheemaal buu qaatay kaayaga baasboor qaatay maantay kala caddaatay ma ogtahay iyo macawiso ma ogtahay marka iyagana kaasan waanu eegaynaa waanu ka tashanaynaa oo tegayna madaxweynaha cabdiraxmaan waa is arkaynaa mowqif midaysan baanu ka gaaraynaa mowqif midaysan lakin waxaan idiin sheegayaa waxa ogaataan cadaawadda idiin qaban madaxda halkaas ee fashilantay laakiin shacbigaa magaarsa uu ka soo jeeda ninkaasi waa beelee beesha habariya hawiya la idhaha anagu xumaan uma qabno isagay arrintu ku koobantay isagay ku koobantay wax dowlad la idhaha somaliland federal government ma jirto waa lagu macaamiliyo soomaali lagu baabiinayo oo dhalinyarta lagula dagaalamayo khayraadka lagu guranayo laakiin wax dowlad idhaha halkaa kama jirto soomaaliya laba wadan bay ka tahay somaliland iyo soomaaliya tani waa jirtaa somaliland waa jirtaa oo adduunka la macaamishaa lakin wax soomaaliya ma jiro degimo qor ma haysto ma tegi kara xalane kismaayo wax uga dhow huura uga dhow oo kenya gacanta ku haysa berbere muxuu ka yaqaana waxa weeye waa nin iska laabkacay laakiin shacbigaana waxba u sheegeen min hawiyaha la yidhaho shacbigii aan wanaag naga dhexeeyo wixii waa qabiilka jubba haysta ka baydhaba haysta ka majeerteeya haysta ka gobolada dhexa haysta west government dowladnimeeda shuruudii dowladnimeeda ma jirto inagu baa dowladda federaalka haye dowladda qabaa'ilka ku qora weligii aqoon dowladda ku qorina inaga waa burmudgelin waxaan jirin marka waynu insha Allah taala waynu arrintan waa dhamaysanayna laakiin keena xun waxa ka xunkaasi ka inaga inuu jira ilaahay kale galeen gacalka iyo qaranka iyo magacanaysa sharafta iyo dowladnimo kale galeen martida jecel marti noqdo baasaboor martiyo oo qaad martiyo oo macawisa martiyo ka la hadla muddo gudoomiye marka laga tago istifaacidda Soomaaliland Soomaaliya abu siyaasi baa tahay wax wada magaranaysa si ogaan kartaa miyaad u malaynaysaa khatar inay Soomaaliland kaga soo socoto Soomaaliya maxay khatar haysaa baarlamaanka kale waxa la hadal hayaa inay warma baarlamaan ba jira oo ay cunaqabateyn saari doonaan yaa qidiga wax weyn ka dhigaya maxay jira deer waxa jira ma jiro baarlamaan ma jiro shakhsiyaad la laga soo waray qaar inaga xitaa ku jira man baarlamaan ma jiro dowlad ma jirto maxaa ma jiraan ma awood baleeyay maanta Ethiopia isku hortaagan ma awood ay isku hortaagan imaaraadka leeyihiin ma awood Soomaaliland ku leeyahay ayaa jirta maxay nagu sameyn karaan xoog inaga ma qaadi karaan inaga ciidan badan ma jiraan been aan waxba jirin oo mass media social media ka nooliyeen iyo isku tasawira meelahaas iyo kubadda wadankiisa hagaajisay ka qayb shirkiisa dayaalad ka hayso maanta charter dayaalad buu ka haystay freedom flight la marka Soomaaliland waxa isku haleynaysa Ethiopia ma anaga isku haleyn waxa amaarna ugu maan kule dawladahaas talaba kama qaadi kara inaga talaba inaga qaadi kara muxuu awood ugu leeyahay ka yaray magaalada NGO ka shaqeyn jiray Norwegian Refugees and Council ka shaqeyn halkan nala joogay waa daayeer way kursi aanu qalin la saaray